Assalamualaikum. My name is Asha Mohammed. Voice of Tomorrow ka shaqeeya dhinaca developmental screening-ka. Maanta maxaa ka hadlaynaa age stages questionnaire oo social emotional ka hadlayso oo loo yaqaano shucuurta bulshada. Markii oo social emotional ka ASQ ka hadlayno muxuu fiirinayaa toddoba area oo cunuga ciyaalka ku muhiimsan. Midka kooga self regulation la dhahaa oo cunuga markano hadduu ooyo cunugaas ma is calm down gareyn karaa ma is dejin karaa. Midka labaad maxaa la dhahaa compliance maxaa laga wadaa markano cunuga haddaa dhahdid oo soo qaada jacketkaaga ama baaka soo xeer ma samayn karaa directionkaas ma follow gareyn karaa. Kan kalena maxaa waa adaptive functioning kaasna maxaa laga wadaa cunuga markano hurdadiisa siduu cuntada u cunaayo siduu musqusha u aadayo. And then midka afaraad autonomy la dhahaa maxaa laga wadaa cunuga markuu markino kaligiis musqusha ma aadi karaa without adoo u sheegin cuntada ma cuni karaa kaligiis adoo dhihin cuntada. And then midda shanaad maxaa waaye affect kanna maxaa laga wadaa cunuga markino feelingkiisa ma kuu sheegi karaa siduu wuxuu dareemayo ma kuu sheegi karaa. Kii lixaadna oo uu fiirinayo maxaa social communication so cunugaas siduu ula dhaqmoya ciyaalka iyo adultka iyo dadka horjoogaan. And then midka ugu dambeeyo interaction with people la dhahaa so ciyaalka cunugaas siduu ula hadlayaa siduu ula ciyaarayaa siduu markino ula dhaqmoya dadka oo uu la joogo. So hadda maxaa fiirinaynaa 48 months oo questionnaire-ka ASQ-ga social emotional-ka 48 months maxaa cunuga markuu 4 sano jiro. Waraaqda kooda meeshaan maxaa waa date-ka markana ku qoraysa uu la buuxinayo questionnaire-ka cunuga magaciisa first name-ka last name-kiisa iyo qofka markana oo question-ka oo su'aalayaasha iyo jawaabta answer gareynayo. Page-ka labaadna maxaa waaye questionyaasha markana su'aalayaashii la weydiinayo oo as the waalidiin ama macallimada ama qofka cunuga fiirinayo ama ilaalinayo that time. So markuu questionka markii la weydiiyo waalidka muxuu answer gareynaa often always maxaa laga wadaa often always markasta waa arkaa cunuga wuu sameynayaa. And then sometimes marmarna waa ujeednaa waa arkaa cunugay waa ku arkaa or rarely or never maba arkibo and then weligeyna ma arkin cunugaas wuxuu sameynayo. So hadda sida page-kan waalidkii wuu soo bixiyay magaca cunugu ku soo qoray wuu soo bixiyay page-kan now waalidkii waraaqda wuu ku keenay waxaan dhan questionya su'aalayaasha dhan wuu soo answer gareeyay. So waalidka markuu z u answer gareeyo z maxaa waaye 0 v maxaa waaye 5 and then x hadduu waalidka uu ku dhuftane maxaa waaye 10 and then box yaraa inta ku jiro oo la dhahayo check this box this is a concern. So waalidka hadduu dhaho for example questionka kooda la weydiiyey maxaa waaye does your child look at you when you're talking to him. So cunugaaga ma ku fiiriyaa markaa la hadlaysid waalidka maxay hadda example-ka muxuu jagaray waalidkii sometimes so marmar uu dhahe. And then also boxki markino oo concern uu jagaray oo muxuu ka wadaa marka walwala iga haya sometimes uu fiiriyaa and then walwalna waa ka haya. So v maxaa waaye 5 and then another v oo this is concern another 5 waaye so haddaa labada la isku daro 10 waalidka meeshaas scorekaas ka helnay. Number 2 maxaa la weydiiyey does your child cling to you more than you expect. So cunugaaga ma kugu dhagaa more than markana oo u malaynaysid waalidka muxuu dhahay rarely never so weligiis ma sameeyo saas ama weligeed ma sameeyo so z waaye and then ebera ku score gareynay. Questionka saddexaad maxaa waaye does your child talk or play with adults she knows well. So cunugaaga ma la hadlaa ama ma la ciyaaraa dad adults uu yaqaano. Often always waalidka ka soo jawaabay markasta ku arkaa uu dhahay so 0 ku qorna meeshaan. And then midda afaraad maxaa la dhahay when upset can your child calm down within 15 minutes. So cunuga markuu xanaaqo ma isdejin karaa within 15 minutes. Waalidka muxuu dhahay often always often always markasta waa arkaa so 0 ku qorna meesha. Midka shanaad does your child like to be hugged or cuddled. So cunugaaga ma jecel inta hab la siiyo waalidka muxuu dhahay often always waa arkaa behaviorkaas 0 ku qornay.
Number 6, does your child seem too friendly with strangers? So cunugaaga markuu qof uu aqoonin markuu arko ma la hadlaa friendly muu la yahay waalidka muxuu dhahay rarely never, so that's ebra ku dhufana meesha. Midka toddobaad maxaa la does your child settle himself down after exciting activities? So cunugaaga markuu activities markino oo exciting ka dhigaasoo dhan ma isdejin karaa waalidka muxuu dhahay often always, ebra ku dhufana meesha. And then 8, does your child cry, scream, or have temper tantrums for a long period of time? So cunugaaga ma ooyaa ma qayliyaa ama temper tantrum muu haystaa for a whole long time period camal la weydiiyey waalidka muxuu dhahay rarely never, so maba arkin, ebera meesha ku dhufanay. So haddaa isku wada darno all 10 eber intaas scorekan pagekan maxaa ku helnay 10. And then pageka labaad number 9, is your child interested in things around her such as people, toys, and food? So cunugaaga interest ma tusaa in markino waxa oo hortiisa ama aroundkiisa yaalo, like dadka uu hor imaado ama toyga hor yaalo ama cuntada soo hor dhigtid waalidka muxuu ka soo jawaabay often always markaso, so ebera ku dhufanay. Number 10, does your child stay dry during the day? So cunugaaga throughout the day al dhahe misqooya dry ma yahe qale ingeg muu yahe camal kale, so misqooyo wax misku daadiyo waalidka muxuu dhahay sometimes, so marmar uu dhahe, so shanaa siinay. Number 11, maxaa la weydiiyey does your child have eating problems? For example, does he stuff food, vomit, eat things that are not food? So maxaa la weydiiyey cunugaaga markano eating problems muu haystaa cuntada, for example afka muu wada geliyaa muu matagaa, and then cunto ahaan muu cunaa waalidka muxuu dhahay rarely never, so weligay ma arkin maba sameeyabo, ebera ku dhufanay. Number 12, do you and your child enjoy meal time? So adii cunugaaga ma jeceshiin intaa cunto isla cuntiin waalidka muxuu dhahay often always, markaso and waa jecelnahay, so maxaa lagu score grades eber. Number 13, does your child do what you ask her to do? So cunugaaga waxaa u dirtid ama waxaa u tilmaamtid ma sameeyaa waalidka muxuu dhahay sometimes marmar, so shanaa ku dhufanay. 14, does your child seem happy? So cunugaaga ma faraxsan yahay waalidka muxuu dhahay often always markaso, so ebera ku dhufanay. And then 15, does your child sleep at least 8 hours in a 24-hour period? So cunugaaga 8 hours ma hurdi karaa 8 hours ma hurdi karaa within 24-hour period kan waalidka muxuu dhahay often always, and then ebera ku dhufanay. 16, does your child seem more active than other children his age? So cunugaaga more active muu yahay than ciyaalka asi la eg waalidka muxuu dhahay rarely never, like ma arkin, ebera ku dhufanay. And then 17, does your child use words to tell you what she wants or need? Cunugaaga arag muu use gareeyaa to inuu kuu sheego wuxuu rabo ama wuxuu u baahan yahay waalidka muxuu dhahay marka often always, so markaso, ebera kaas ku dhufanay. 18, does your child stay with activities he enjoys for at least 10 minutes? Cunugaaga activity hadduu markina uu jecel yahay more than 10 minutes mala joogaa ma ku ciyaaraa waalidka muxuu dhahay often always, so markaso 0 ku dhufanay. 19, does your child use words to describe her feelings and the feeling of others? For example, does she say I'm happy, I don't like that, or she's sad? So cunugaaga ma kuu sheegaa wuxuu dareemaya ama dad kale waxay dareemayaan, like ani happy ahe ama ma rabi kaas ama qofkaas sad uu yahay waalidka muxuu dhahay often always markaso, so that's eber. So taas ku wada darno eber shan, so shan iyo shan hadaa la isku daro 10 aan pagekan ka helnay. And then pageka saddexaad, 20, does your child move from one activity to the next with a little difficulty? So cunugaaga asoo wax sameynayo meel kale ama wax kale ma qaban karaa asoo markan oo dib ku ahayn waalidka muxuu dhahay often always markaso, so ebera ku dhufana meeshaas.
kow maxaa la dhihi does your child explore new places such as park or friend's home so cunugaaga ma jecel yahay inuu maarkino uu fiiriyo markuu meel cusub uu tago whether maarkino park uu yahay ama saaxiibaha gurigiisa waalidka muxuu dhahay often always markasto so eberaa ku dhufanay 22 maxaa la dhahay does your child do things over and over and get upset when you try to stop him so cunugaaga waxuu sameynaya ma kusoo celinaya again and again and again and then ma xanaaqa markino adi ka joojisid maxay dhahde rarely never uu waalidka kusoo jawaabay so eberaa ku dhufanay 23 does your child hurt herself on purpose cunugaaga kasii kibir misdilaa maxaa la dhahay waalidka muxuu dhahay rarely never so ma arkin eberaa ku dhufanay 24 does your child follow rules at home or at child care so cunugaaga ma arkino hadda rules iyo ma arkino direction ma follow garaya gurigaa soo joogo ama daycare hadduu joogo waalidka muxuu dhahay often always so eberaa ku dhufanay 25 does your child destroy or damage things on purpose so cunugaaga kasii kibir toyga ama waxuu maarkino haysto ma destroy gareeya waalidka muxuu dhahay rarely never so eberaa ku score gareynay 26 does your child stay away from dangerous things such as fire and moving cars so cunugaaga waxa maarkino dhibka badan oo camal oo kale dab ama gaariyaasha oo socdaan ma ka joogaan waalidka muxuu dhahay often always so eberaa ku dhufana meeshaas 27 can your child name a friend cunugaaga haddaa dhahdid hey saaxiibkaa magaciisa ii sheeg ma kuu sheegi karaa waalidka muxuu dhahay often always so markasto so eberaa ku dhufana meeshaas 28 maxaa does your child show concern for other people's feelings for example does he look sad when someone is hurt so cunugaaga maarkino hadduu qof uu arka ama oynaya ama qof sad uu yahay ma ku tusaa concern ma ka walwalaa dadka kale waalidka muxuu dhahay often always waan arka behaviorkaas so eberaa ku dhufanay 29 do other children like to play with your child so ciyaalka kale ma jecel yihiin cunugaaga intay maarkano la ciyaaraan waalidka muxuu dhahay often always so waa arkaa behaviorkaas eberaa ku dhufanay so haddaa maarkano isku wada aad gareeno eber pagekan oo saddexaad maxaa ku helnay skorka eber questionka oo soddonaad maxaa la dhahay does your child like to play with other children so cunugaaga ma jecelya inuu ciyaalka kale la ciyaaro waalidka muxuu dhahay often always markasto eberaa ku score gareenay 31 does your child try to hurt other children adults or animals for example by kicking or biting so cunugaaga markino dadka kale muu hid gareeya ama lugtaasoo ku dhufto ama ha qaniino ama lugta ha ku dhufto waalidka muxuu dhahay rarely never so ma arkin behaviorkan so 0 ku dhufanay 32 maxaa lagu weydiiyey does your child show unusual interest in or knowledge of sexual language and activity so su-aashaan markii la weydiinayo maxay ka hadloosaa sometimes maxaa iska dhici karto cunuga maarkino inuu wax curious uu ka yahay ama maarkino ama uu maqlo uu rabo inuu more oo ma ogaado so waalidka muxuu dhahay rarely or never so eberaa meeshaas lagu qoray so 33 maxaa la weydiiyey waalidka does your child wake 3 or more times during the night so cunugaaga ma soo kacaa 3 jeer ama in kasii badan waalidka muxuu dhahay sometimes so marmar and then boxka muxuu jagareeyay oo concerne so muxuu dhahay marmar waa arkaa and then walwalaa ka qabaa so haddaa 5 iyo 5 laysku daro 10 meeshaas kasoo baxday 34 maxaa la weydiiyey waalidka is your child too worried or fearful so cunugaaga a lot of walwal ma hayo ama a lot of cabsi waalidka muxuu dhahay rarely or never so ma arkin behaviorkan eberaa meeshaas ka helnay 35 maxaa la weydiiyey waalidka does your child have simple back and forth conversation with you for example parent it's raining child
and called outside. Parent, let's get your coat. Child, I got you. So cunugaaga markino aan hori gadaal ma kula hadlaya markaa la hadashid ama wax su'aal hadaa weydiisid. For example, rooba ka da'ay baraanka aad idhahday, dan cunuga muxuu ku dhaho baraanka qabo waaye. Dan haddana maxaa dhahday oo soo qaada jacketkaaga, cunuga muxuu ku dhahay waaba heestaabo. So waalidka muxuu ka jawaabay often always markasta waa arkaa cunugayga wuu sameeyaa. So eberaa meeshaas ku score garanay. Soddoni lix maxaa la dhahay has anyone shared concern about your child's behavior? Dad may kuu sheegeen ama inteed ma ku dhaheen walwalaa ka qabnaa cunugaaga behaviorkiisa ama siduu cunugaaga u dhaqmanayo. waalidka muxuu dhahay rarely, never. So qof ma imaanin mana arkine. So eberaa meeshaas ku sameynay. So hadda ma arkno waxaan dhan laisku aad gareeyo scoreka meeshaas maxaa ka helnay 10. Pageka shanaad maxaa waay meeshaan overall questions aa la dhahaa. So meeshaan maxaa la weydiino just questions oo waalidka la weydiinayo waaye. For example, do you have concerns about your child's eating, sleeping, or toileting habits? So maxaa la weydiiyo cunugaaga markana walwal maa ka heesaa cunugaaga siduu cuntada u cuno ama siduu u hurdaayo ama siduu musqusha u isticmaalo. waalidka maxay dhahdeen may. And then maxaa also la weydiiyo does anything about your child worry you? So wax maa markino wax oo anything maa ka walwalaysaa aad u dareemaysid wax inaa ka walwalaysid. waalidka muxuu dhahay maya. And then midka ugu dambeeysa maxaa la dhahay what do you enjoy about your child? So maxaa markino cunugaaga u jeceshahay ama oo enjoy gareysaa. waalidka muxuu ku qoray oh very affectionate and loves to play. So cunugayga maxaa very dadka markino oo jecel inuu show gareeyo siduu dareemkiisa and also wuu jecel yahay inuu ciyaaro. And then now pagekan ugu dambeeyo markaa markino waxaan oo dhan score gareeno oo wixii scoreka dhan isku wada darno. pagekan hadda ugu dambeeyo maxaa waay pagekii markino informational summary aa la dhahaa. So wixii dhan markaa isku wada darno oo scoreka iyo waxaas sameyno waalidka wuxuu kusoo jawaabay isku wada darno intaa kusoo guurinayna. So haddaa inta fiirino meeshaan maxaa meeshii oo page 1, page 2, page 3, page 4 wixii scorekii ku helnay. intana maxay ka hadlowsaa 85 cutoff waxaa la dhaho 85 markuu cunuga jiro 48 markuu jiro bilood maxaa loogu talagalay either 85 inuu ag joogo ama inuu ka hooseeyo. So kana hoosana ujeediin oo whiteka iyo greyga iyo madowga ku qoran maxaa laga wadaa cunugan hadduu meesha cadka uu joogo that means cunugan maka walwaleeno meeshii laga rabo buu joogaa. hadduu meesha greygan uu joogana maxaa laga wadaa cunugan muxuu u baahan yahay intii lagu dhiso intii la caawiyo activities hadaa la sameynayno ama si aan u caawinayno cunuga. hadduu meesha madowga uu joogana maxaa laga wadaa cunugan more than muxuu helay 85. For example haddee meeshaan noqoto 86 ama 87 ama 88 haddee noqoto markino cunugan meesha madowga uu joogaa that means wuu ka koreeyay numberkii laga rabo. So ama referral u direena meeshaan. So haddaa fiirino meeshaan ku noqono total page 1 page koodii maxaa ku helnay 10. pageka labaad maxaa ku helnay 10. pageka saddexaad maxaa ku helnay eber. pageka afraadna maxaa ku helnay eber. So haddaa isku wada darno 10 eber 20 meeshaas ka helnay. So cunugan hadda oo waalidka kusoo jawaabay 20 uu joogaa. So that means cunugan meesha cadka uu joogaa wax ma ka walwaleeno meesha laga rabo uu joogaa. So saas waay sida ASQ social emotional loo score gareeyo and loo fiiriyo. sida haddaatan idhahay magacay maxaa la dhahaa Asha Maxamed. developmental screeningka dhinaciisa ka shaqeeya. maanta maxaa ka hadlaynay age stages questionnaire social emotional oo loo yaqaano ASQ SE. so sidaan idhahay waana lasoo xiriiri kartiin haddaa markino su-aal ama jawaab haysatiin. adinkoo dhan thank you so much for naga soo qayb gasheen. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.